بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد درسigani waa dersigii tobanaad ee ka mid ah duruustii aan ka wadnay kitaabkii ahaa alajruumiya waxaanu ku guda jirnaa baabu macrifati calaamaati alicraabi waxaanu soo sheegnay baabu macrifati calaamaati alicraabi in looga hadlaayo laba mas'alo mas'alada koowaad waxay ahayd calaamaatu alicraabi waa maxay mas'alada labaadna calaamadahaasu xaggay degaan waxaynu ka soo baxnay rafcada iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasi meelaha ay degi lahaayeen waxaan insha allahu tacaala maanta guda gelaynaa oon qaadanaynaa nasbada iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasu meelaha ay degi lahaayeen sheikha wuxuu dhahay walinasbi kordhiga khamsu calaamaatin shan calaamo ayuu leeyahay alfatxatu kow iyo walalifu labo walkasratu saddex walyaau afar waxadfu nuuni nuunta oo la gooyo nasbada waxay leedahay shan calaamadood shanta calaamadood ee nasbada leedahay kan koowaad waa alfatxatu kan labaadna waa alalifu kan saddexaadna waa alkasratu kan afaraadna waa alyaau kan shanaadna waa xadfu nuuni nuunta oo la gooyo weeye shanta calaamadood oo ay nasbada leedahay midka ugu horeeyo oo fatxada ah sheikha wuxuu dhahay fa ama alfatxatu fatxadu fatakunu fatxadu waxay noqotaa calaamatan calaamad ayay u noqotaa linnasbi kordhiga fii halaathati mawaadica saddex boos dhexdooda fi lismi almufradi isimka mufradka ah iyo wa jamci taksiiri jamcu taksiirka waalficli almudaarici iyo ficilka mudaaric idaa dakhala hadduu galo calayhi korkiisa naasibu mid kordhiga walam yatasil ousan la xiriirsamin biaakhirihi aakhirkiisa shay-un waxba fatxadu waxay degtaa saddex boos ayay degtaa saddexdaa boos ay degto kow isim mufrad ah kan labaadna waa jamcu taksiiri kan saddexaadna waa ficilka mudaarica ah hadduu galo ficilka mudaaric wax kordhiga gadaashiisana uusan ficilka mudaaric waxba uusan la xiriirsamin saddexdaa mawdic ama saddexdaa boos waxaa lagu kordhigaa fatxa lagu kordhigaa isimka mufradka hal shay magacii markii la rabo in la kordhigayo waxaa lagu kordhigayaa fatxa jamcu taksiirka markii loo baahan yahay in la kordhigana waxaa lagu kordhigayaa fatxa ficilka mudaaric oo saxiixul aakhirka ah oo gadaashiisa aysan waxba la xiriirsamin haddii uu galo wax kordhigana isna waa la kordhigaya waxaan lagu kordhigayaa fatxada wa ama alalifu alifta miya fatakunu waxay noqotaa aliftu calaamatan calaamad ayay u noqotaa linnasbi kordhiga fi lasmaa'i alkhamsati asmaa'da shanta ah naxwu sida ra'aytu waxaan arkay abaaka aabbaha wa akhaaka walaalka wamaa ashbaha dalika iyo wixii shaabaha aliftu waxay degtaa hal boos halkaa boosna waxaa la yidhahdaa asmaa'u lkhamsa asmaa'u lkhamsa markii la rabo in la kordhigo waxaa lagu kordhigayaa alif baa lagu kordhigayaa wey shala markii aan soo maraynay asmaa'u lkhamsa waxaa lagu godaayey waaw oo akhuuka abuuka akhuuka xamuuka fuuka duu maan lahay maanta markii la doonayo in la kordhigana waxaa lagu kordhigayaa alif baa lagu kordhigayaa wa ama alkasratu kasrada miya fatakunu waxay noqotaa kasradu calaamatan calaamad ayay u noqotaa linasbi kordhiga fii jamci lmu'anathi asaalim jamcu lmu'anath asaalim jamaca hablaha ee nabad galay markii la rabo in la kordhigo waxaa lagu kordhigayaa kasra ay lagu kordhigayaa wey isagoo hoos dhigan ee waxaa leeyahay waa uu kordhigan yahay sida muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin iyo wixii lamid a marka kasradu waxay degtaa aydun hal boos oo la yidhaahdo jamcu lmu'anath asaalim jamaca hablaha ee nabad galay markii la doonaayo in la kordhigo kasra lagu hoos dhigay ayaa lagu kordhigayaa wey kasra ayaa lagu kordhigayaayo asagoo yani maaragtay hoos dhigan ee waxaa leeyahy wuu kordhigan yahay wa ama alyaau ya-da miya fatakunu ya-du waxay noqotaa calaamatan calaamad ayay u noqotaa linnasbi kordhiga iyo calaamad u noqotaa fi tathniyati tathniyada dhexdeeda iyo waljamci jamcu lmudakar asaalim
ya-duna waxay degtaa hal boos, laba boos ay degeysaa. ya-du waxay degtaa laba boos, jamcu lmudakar asaalim iyo tathniya. tathniyada markii la doonaya in la kordhigo waxaa lagu kordhigayaa ya. jamcu lmudakar asaalim markii la rabo in la kordhigana waxaa lagu kordhigayaa ya. labadooduba waxaa lagu kordhigaa ya ayaa lagu kordhigaa wey. sida muslimay, tathniyadu waa muslimayni, mu'minayni, qaanitayni, caabidayni. jamcu lmudakar asaalim muslimiina, mu'miniina, qaanitiina, taa'ibiina waayahay, saasaa leeyahay wa. wa amaa xadfu nuuni, nuunta oo la gooyo miya fayakuunu wuxuu noqdaa xadfu nuunku calaamatan calaamad ayuu u noqdaa linasbi kordhiga fi lafcaali alkhamsati afcaasha shanta ah allatii afcaashaasoo hubuutuhaa rafcuhaa godaalkeedu bihabaati nuuni, nuunta sugitaankeeda uu ahaaday. wa amaa xadfu nuuni, xadfu nuunka miya fayakuunu wuxuu noqdaa calaamatan calaamad ayuu u noqdaa linasbi kordhiga fi lafcaali alkhamsati afcaasha shanta ah allatii afcaashaaso rafcuhaa godaalkeedu uu ahaaday bihabaati nuuni, nuunta oo la sugo. waaya xadfu nuunka waxaa lagu kordhigaa hal meel oo la yidhahdo afcaalu lkhamsa. afcaalu lkhamsaha shala markii aan soo marayni lagu godaayey nuun in la sugo, maanta markii la doonayo in la kordhigo waxaa lagu kordhigayaa nuuntii oo la gooyo. maanta waxaan qaadanay nasbada calaamaadka ay leedahay oo shan ah iyo shanta calaamadood ay leedahay meelaha ay degayaan. shanta calaamadood ay laheed alfatxatu kow, kan labaadna waxa weeyaan alalifu, kan saddexaadna waa alkasratu, kan afraadna waa alyaau, kan shanaadna waa xadfu nuuni. shanta calaamadood oo ay nasbada leedahay ayaan qaadanay iyo meelaha ay degi lahaayeen. fatxadu waxay degtaa saddex boos: ism mufrada, jamcu taksiiri, ficl mudaaric idaa dakhala calayhi naasibun walam yatasil biaakhirihi shayun. alifku wuxuu degaa hal boos, asmaau lkhamsa. kasradu waxay degtaa hal boos, jamcu lmu'anath asaalim. ya-du waxay degtaa laba boos, tathniyada iyo jamcu mudakar asaalim. xadfu nuunku wuxuu degaa hal boos, afcaalu lkhamsa. sideeddaa boos ayay degaan weeye. intaa aynoo joogo insha allahu tacaala, wallahu aclam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.